qodobada ugu waaweyn barnaamijkeena waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan oo maanta ka hadlay soo saarista shidaalka Soomaaliya waxa uu sheegay muddo 6 bilood ah in shidaalka Soomaaliya lagu soo saarayo waxaan ku hayaa warbixintii ugu dambeysay heerka uu marayo shidaalka Soomaaliya oo la sheegay in dhawaan Soomaaliya ay ku beeri doonto dalalka shidaalka soo saara qodobada sidoo kale aanu barnaamijkeedu ku aanayana waxaa ka mid ah ugu dambeyn Imaaraadka Carabta ayaa ku biirtay dawladaha Sacuudiga uu hogaaminayo ee sida weyn u diidan dagaalka Iran in uu dib u soo laabto ama Mareykanka Israel ay weeraraan waxa lagu waramayaa Imaaraadka inuu ka muuqdo isbedel weyn sababtu maxay tahay barnaamijka ayaan ku eegi doonaa qodobada sidoo kale barnaamijka aad ku maqli doontaan waxa ka mid ah xogayaha arrimaha dibadda dalka Mareykanka Marco Rubio oo maanta ka hadlayay xiisadda Mareykanka Iran u dhaxaysa waxa uu sheegay in dhammaan dalalka caalamka oo Mareykanku ugu horeeyo ay doonayaan mar inay arkaan Hormuz oo furan sheekaya ayaa taagan Mareykanku maanta waxa uu bariyaa in Hormuz la furo qodobka ugu dambeeyana barnaamijku waxaan idinku hayaa warbixin Al Jazeera ay ka diyaarisay in suuqa shidaalka caalamka labada bil ee soo socda uu gaari doono June iyo July heerka ugu sareeya taariikhda abid uu gaaray qodobada iyo kuwa kale ayaanu barnaamijkeedu ku haynay halkan waa Kow Somali Media madaxweynaha dalka Turkiga ayaa maanta waxa uu ka hadlay shidaalka Soomaaliya ee ay qandaraaska ku qaateen ama heshiiska lagu galay in Turkiga ay soo saaraan madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan oo arinta ka hadlayay ayaa waxa uu sheegay in dhawaan shidaalka Soomaaliya ay soo saari doonaan haddaba Erdogan waxa uu sheegay in shidaal qodista ay ka wadaan xeebaha Soomaaliya inay ku dhamaanayaan muddo 6 ilaa 9 bilood ugu dambeyn wuxuu yiri howlgalka aan ka wadna xeebaha Soomaaliya waa mid taariikhi ah sababtoo ah buu yiri waa howlgalkii ugu horeeyay ee Turkiga uu ka sameeyo qodista shidaalka badda si qoto dheer ee ka baxsan dalkeena Erdogan waxa uu sheegay in Turkiga tani kaliya aysan u ahayn in Soomaaliya shidaal ay u qodeen laakiin iyaga laftirkooda ay taariikh u tahay maadaama shidaal sidan oo kale ay dibadii uga qodaan nooca Soomaaliya markii ugu horeeyay ay tahay marka laftirkooda taariikh baa u qormayso Soomaaliyana taariikh qalab ay u tahay waa markii ugu horeysay shidaal laga soo saarayo oo waxa leeyahay nimca iska dheganayd ama iska taalay oo muddo aan la isticmaalin dadku ay ka gaajaasnaayeen ayaa la soo saaraya shidaalkeeda wuxuu intaa ku daray Erdogan hadii xaaladaha cimilada iyo hawadu saamaxaan waxaan filayaa in howlaha qodista lagu dhameeyo muddo u dhaxayso 6 ilaa 9 bilood waxaan rajaynaynaa buu yiri in shacabka walaalaha nahay ee Soomaaliyeed aan gaarsiino war wanaagsan oo ay muddo dheer sugayeen shacabkaas oo sanadyo badan la daala dhacay colaado macluul gaajo iyo dhibaato macnaha Erdogan wuxuu aaminsan yahay hadii ay ku dhawaaqaan shidaalkan inay noo qodaan 6 bil gudood noogu dhameeyaan gaajada iyo macluusha inaan ka baxayno oo aan maartay Soomaaliya ay noqonayso meel dadkeeda qani ay noqonayaan qani bal ka war hadii shidaalka Soomaaliya inta la soo saaro si cadaalad loo qaybiyo qof kasta oo Soomaali ah nama bursan lahayn Kenyati Ugandese South Sudanese South African hadda waxay bilaabeen dadka inay guryaha ugu galaan nin dhanba businesskiisa inta loogu tagay laga soo saaray waxa leeyahay maxaa wadankan ka soo doontay waxna ma haystaan waa reebaadiyo markaas waxay ku leeyihiin why adalkeen u joogtaa why macnaha mar dhow 6 bil 9 bil kadib South Africanka waxay imaan doonaan Soomaaliya insha Allah shaqay soo dooran doonaan ila daawo Erdogan arrinta ka hadlay laakiin ma ka arsanayna waa saxina Somali açıklarında yürüttüğümüz çalışmalar Türkiye'nin yurt dışındaki ilk derin deniz arama sondajı olması hasebiyle tarihi önemlidir. İklim ve hava şartları el verirse sondaj operasyonunu 6 ila 9 ay arasında tamamlamayı öngörüyoruz. Arzumuz uzun yıllar
iç istikrarsızlıkla ve kıtlıkla boğuşan kardeş Somali halkına bekledikleri müjdeli haberi vermektir. waayahay kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan oo ka hadlayay qodista ceelka Soomaaliya iyo rajada ay ka leeyihiin. Erdogan waxa uu leeyahay qardash Soomaaliya qaraga waayahay Erdogan wuxuu leeyahay dadka walaalaheena gaajada ka bixi doonaan qaniin noqon doonaan laakiin waxa la isweydiinaa lacagta ceelasha shidaalka wanimayo sida khaliijka inooga dhiga walba xitaa hadaan siinay sida idinka boqortooyada carabta iska noqotaan bal adduunyada kale aan ka maarano annagana dhar cad inta noo gelisaan baawra cad noo gadaan dadkii wada siyaasiyiin noqdeen siyaasadda si looga nasto ya bal aan iska labisano hidii dhaqanka Soomaaliya dhar cad inta noo tashaan koofiyadii Soomaalida iska gishano carabta shaqaraadiska Afrikaanka shaqaraadiska aan kafiil u noqono 10 sanadkii qof kastoo naga mid 10 qof oo kafiil u noqona sanadkii 100 kun ku soo dhaceys tartiibta ma uu rafaadaysid marka siyaasadda waqti uma helayno waxa ii dar in aad u cayilna hadaba cunto fiican la cunayna dadka si u yaalaan cayilkooda ka yaabis waayahay saaxiibada qiimiga lahow hadii si qaldan loo maamulo waxay noqonaysaa sida Nigeria kale dadkan way ka gaajoonayaan waana rafaadeenaa waxaan rajaynayaa in maamulka shidaalka la soxo in siyaasadda qarriban la iska hagaajiyo dadku ku baraarugaan dhibaatada dunida maanta ka taagan qodobka xiga barnaamijka ayaynu toos u galaynaa ugu dambeyn sida ay qorayso warbaahinta Axios waxa ay leedahay imaaraadka carabta waxa ay hadda ku soo biirtay markii ugu horeysay xulufada uu horkacaya dalka Sacuudiga ee sida weyn u diidan dagaalka Mareykanka iyo Israa'iil ay ku wadaan Iran inuu dib u soo noqdo Sacuudiga ayaa koox dalal ah ku hogaaminayay ama horboodayay in la diido oo laga hor yimaado in dagaalka uu dib u qarxo gaar ahaan dalalka qaliijka ayuu Sacuudiga dhammaantood waxa uu ka dhameeyay in ay diidaan hadii dagaalku uu soo noqdo Mareykanka in hawadooda u isticmaalo Israa'iil iyo Mareykan isticmaalaan Sacuudiga ayaa wadamada u horkacay Qatar iyo kuwa kala kamid ah Kuwait iyo dhammaan Sacuudiga u daba taagan yihiin imaaraadku baa gooni ka ahaa maanta warbaahinta Axios waxay leedahay imaaraadkana xulufadaas ku soo biiray oo taa macnaheedu waxa ay tahay hadii caaw u dhaho Mareykanku waxaan duqeynayaa Iran intuu ka duqeynayaa ilaan imaaraadka haday diiday Sacuudiga diiday Qatar diiday Kuwait diiday wadamadii qaliijka dhan ay diideen Turkina hore u diiday marka inta laga weerarayaa way marka xujada ugu weyn ee Mareykan hortaagan intuu Soomaaliya Israa'iil uu ka soo baxaya way ku adkaanaysaa baalile iyadoo markii hore hawada qaliijka u furnayd ayuu Mareykanka wuxuu wajahayaa culays weyn iska caabin aad u culus oo dhinaca Iran iyo xulufadeeda uga imanayay haddaba maxaa faa'iido ah imaaraadka ugu jiro inay xulufada Sacuudiga ku biirto oo aragtidii Mareykanka Israa'iil ay ka hortimaado waa sida ay qorayso warbaahinta Axios imaaraadka waxa cadaanaysa baalile in Iran ay ka joojinayso hadii dagaalku soo noqdo dalalka kale qaliijka ma duqeynayso because iyaga hawadoodina way diideen saldhigyada in isticmaalna way diidayaan imaaraadka kaliis buu noqonayaa waxaana ku dhacaysa baa leeyahay si ka badan sidii ku dhacday markii dagaalka uu bilowday oo 2800 oo gantaal ayaa lagu dhuftay imaaraadka carabta kaliis waa gantaalo ka badan iyo drones intuu ku dhacday Israa'iil in ka badan imaaraadka kaliis ku dhacay marka imaaraadka isaga dantiisa fiirsaday baa la dhahay in uu ku soo biiro kooxda Sacuudiga horkacay ee diidayso dagaalka in dib uu bilowdo iyadoo ilaa hadda wada hadaladii ay Islaamabad horboodaysa ama Pakistan wax natiijo una ka soo bixin waayahay saaxiibada qiimiga leh qodobka xiga barnaamijka xogayaha arrimaha dibadda dalka Mareykanka Marco Rubio ayaa sheegay hadal aad loola yaabay oo dood badan dhaliyay macnaha Mareykanku waxay ku tusaysaa baa leeyahay daalka uu ka qaaday dagaalka Iran iyo sida uu dhibsaday xogayihii arrimaha dibadda Mareykanku wuxuu leeyahay waxaan maalin un jeclaan lahayn inaan aragno ama wadamada oo dhan ba way jecelin annagana kamid u leeyahay Hormuz oo furantay maalin un aragno waan jeclaan lahayn macnaheedu waxa ay tahay Mareykanku xoog kuma furi karo shalay meel furneed bay maanta baryayaan in la furo Trump luqadiisa xitaa way isbedesho baa leeyahay maanta xogayihiisa arrimaha dibadda Marco Rubio wuxuu leeyahay waxaan jeclaan lahayn maalin un we would like to see Hormuz open
هرموز وفرنون إن إلسار سدح بالكور هرموز محرنين أفر بالبدة كور هرموز محرنين ما أنت وحالا قرقرتما يا هرموز هلا فرية لما فرية وكان إلى دعوة حقيقة رمها دي بدأ دالك مرايكن كماركو روبيو وارنتا كهاليو. Have you made progress today, sir, with the allies on getting the Strait of Hormuz fully back up and running? And have No, I would be pretty ambitious to be able to open the straits at this meeting here today, but I can tell you that what I hope there is, this is what I hope for, and this is the point I made, is we all would love to see an agreement with Iran in which the straits are open and they abandon their nuclear ambitions and so forth, their nuclear weapons ambitions. That's what we would all hope for, and that's what we're going to continue to work on, and that's what work is ongoing even as I speak to you now in that regard. But we also have to have a plan B. And plan B is, what if Iran refuses to open the straits? What if Iran decides we refuse to open the straits, we're going to own the straits, and we're going to charge tolls for it? Okay, at that point, something has to be done about it. And I would argue that there are countries represented here today that are more deeply impacted by this than even the United States is. So all I'm saying, and I've said, and I think this has been reiterated by others, there are other countries that agree with me on this, is that we have to start thinking about what do we do if a few weeks from now Iran decides we don't care, we're going to keep the straits closed, we're going to sink any ship that doesn't listen to us or doesn't pay us. Then someone's going to have to do something about it. Okay, they're not just going to voluntarily reopen the straits in that scenario. So we have to start thinking about it. I raised that point today. I got a lot of nods. I got a lot of people that came up to me afterwards and acknowledged it. But we don't have an announcement for you today in terms of something that's happening. I know there's a plan in place for what to do if the shooting stops. وايه حكاية arrimaha dibadda dalka Mareykanka Marco Rubio hadalkiisa cid dhageysatay waa hadal aad loola yaabay Mareykanka heerka maanta uu gaaray dhulka la soo dhigay Mareykanka shaki kuma jiro dadka siyaasadda caalamka fahamsan inay arkayaan Mareykan inay aad uga daaleen dagaalka Iran meel ay ka baxaan ay la yihiin wuxuu leeyahay annagoo dhan waxaan jeclaan lahayn in Iran ay heshiis qaadato Hormuz la furo uraniumka ay ka tanaasusho annagoo dhan waa jeclaan lahayn markaas wuxuu leeyahay haday diido we need to have a plan B wa in plan B uu jiro what is the plan B mark ma dhahay annaga weerareen ma dhahayn waa baabiinayna waagi horsaas ay dhihi jireen Iran will destroy ay dhihi jireen waa la baabiinaya macnaha heer waxay gaareen ee dhahaan markii hore ilbaxnimo dhan baa la weyn doonaa maantana waxay leeyihiin dawladda waxaa jir NATO ka hadlaya shirka NATO shirmadaxeedka NATO jooga wuxuu leeyahay macnaha dalal waxaa jira nagala qayb qaadanaya arrinta ay saameysay in wax laga qabto laga jawaabo waa la weerarayaa waan duqeynanaa way soo dhamaatay heerkaas la maraya daadan jawaabino isdifaacin ciidan iyo awood iyo dal iyo dad aadan isku halayn sida madaxweynihii Venezuela lagu soo qaban haday u soo qaban karaan way soo qaban lahaayeen madaxda Iran laakiin waa la iska celi wixii dhintay wixii nool jiiba waxa ay ka diyaarisay cabsi weyn oo ay wajahayaan suuqyada shidaalka caalamka warbixinta Al Jazeera ay ka diyaarisay arrintaasi ayaa waxa diiradda lagu saaray in bilaha soo socda ee June iyo July bisha 6 iyo 7 suuqyada shidaalka caalamka ay gaari doonaan heerkii ugu sareeyay abid sabab la sheegay xirnaanshaha Hormuz oo ay Iran xirtay qalalaasaha ka taagan bariga dhexe haddaba Iran tan intii ay bilowday inay xirto Hormuz waxa maalinta ka dambaysa cirka sii galay qiimaha shidaalka taas oo badeecada caalamka iyo dhaqaalihii adduunka qalqal weyn gelisay haddaba waa tan qayb kamida warbixinta Al Jazeera ay ka diyaarisay cabsida weyn ka taagan adduunka waliba bilaha soo socda 6 iyo 7 bisha 6 iyo bisha 7 waxa ku xiga xilliga fasaxyadii bilaabanaya oo lagu sii socdaa tigidyada diyaaradahan waxay gaarayaan heerkii ugu sareeyay waliba waxay leedahay daan wax laga qabanin oo xaaladda Iran iyo Mareykan ay degin waxa qaaliyoobi doona tigidyada kaliya qaali maahan shirkado badan aad tigidyada kansalay waayo qiimaha tigidyada lagu goostay iyadoo raqiistay dad badan goosteen shirkadii ma awoodaan marka shidaalkani June iyo July uu sii qaaliyo Augustan cirku sii gala intaasna bisha 7 isdeedaad 6 7 8 shidaalka sii qaaliyoobay shirkada diyaaradda qof 700 $800 ku goostay tigid Afrika ku aadaya ama Asia Mareykan iyo Yurub ka soo qaaday kuma qaadayso waxay ku qasbayeen diyaarad badan inay tigidkooda kansalaan oo garaa macaamiisha loo celiyo ila daawatan warbixinta Al Jazeera ay ka diyaarisay in shidaalka caalamka bisha 6 iyo 7 uu cirka galayo Warnings of oil supplies approaching a red zone, the US hints at positive signs in Iran peace talks, but rejects Iran's de facto control of the Strait of Hormuz.
Here's everything you need to know about the past 24 hours. And the problem is, end of June, early July, the travel season starts. What does it mean? Typically, oil demand, oil consumption goes up. This may be difficult, and we may be entering the red zone in July, August. No one in the world is in favor of a tolling system. It can't happen. It would be unacceptable. Global energy supplies are in more trouble according to the International Energy Agency. The 32-member body has already coordinated the release of 400 million barrels of oil from strategic reserves to make up for the shortfall caused by the war on Iran and the blockade of the Strait of Hormuz. But stocks are dwindling, and so is the money needed to pay for more. Iran began restricting the traffic through the Straits as a response to the US-Israeli bombing and the tacit support of some Gulf states. The US retaliated by blockading Iran's ports and crippling its ability to export oil. Iran has set up a system that allows limited transit, but the US position on that continuing is clear. How do you want things to end up with the Strait of Hormuz? Well, we want it open. We want it free. We don't want tolls. It's international. It's an international waterway. They're not charged. taasi waxay ahayd warbixinta Aljazeera ay ka diyaarisay shidaalka caalamka oo cirka sii galayo. hay-adda arrintaa u qaabilsan ayaa isku dayday shidaalkayd ahaa in suuqa lagu fasaxo. weli taa laftirkeeda waxaa lagu warramayaa inaysan wax weyn ka taraynin suuqyada caalamka oo meel adag marayo. saaxiibada walaalaha qiimiga loo barnaamijkeeni fiidnimo aad kala socoteen kow Somali Media guud ahaan qaybtan waa inaga tan inta aynu kulmayno barnaamijka mid ka xigo walaalkii Mustafa Cali oo idin leh nabadgelyada Ilaahay dushiina haato. Assalaamu calaykum.